dhowr iyo 20 saac ee la soo dhaafay dhaqdhaqaaqyo xooggan oo dhanka ciidamada ah ayaa si weyn looga dareemaya galbeedka iyo koonfurta magaalada Saylac ee Somaliland. wararka halkaas laga helaya ayaa waxay tilmaamayaan in ciidanka Somaliland ay weerar culus ku qaadi karaan mar kale dadka xoolo dhaqatada ah ee beelweynta reer Ciise. dagaaladii shalay ka dhacay galbeedka magaalada Saylac ayaa la soo warinayaa in uu sababay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac. ugaaska guud ee beelweynta Ciise ugaas Mustafa Maxamed Ibrahim oo si cara leh uga jawaabay ficilkan ayaa amray in weerar kale lagu qaado ciidanka Somaliland haddii mar kale dad xoolo dhaqata ay dilaan. dadkii rayidka ahaa ee ciidanka Somaliland ay dileen ayaa shalay lagu aasay banaanka magaalada Saylac iyada oo boqolaal shacab ay ka soo qayb galeen. dad badan oo arrimahan la socda ayaa u arkaa ficilkii foosha xumaa ee ciidanka Somaliland ay dadka rayidka ku beegsadeen mid laga baaqsan karay oo dhibaato aan horseedi karin. waxaana wararka iyo macluumaadka aan helayna ay tilmaamayaan inay adag tahay in la arko mar kale ciidanka Somaliland oo weerar qaaday ah. caro xoog leh ayaa ka dhalatay ficilkii foosha xumaa oo ay dad badan u arkeen mid daandaansi ah oo ka dhan ah bini'aadantinimada, ayuu yiri mid ka mid ah saraakiisha beelweynta Ciise oo warbaahinta la hadlay. ugaaska guud ee beelweynta Ciise ayaa amray in ciidanka beelweynta Ciise ee ku sugan magaalada Diridhabe ay heegankii ugu sarreeyay galaan iskana celiyaan cid walba oo daandaansi ku ah dhulkooda. ugaasku wuxuu tilmaamay in loo aargudi doono dadkii rayidka ah ee la laayay. sidaas lamida ugaasku wuxuu hoosta ka xariiqay in biliiska Somaliland ay adeegsadeen rasaas aan hore loo arag oo qofka bini'aadanka ah uusan badhaawacmayn, taas oo uu shaki geliyay rasaasta dadka loo adeegsaday inay ahaayeen kuwa fool xun oo laga baaqsan karay. xiisada ayaa xilligan laga soo warinaya meelo ka mid ah gobolka oo ay dad badan aaminsan yihiin inay xaaladda uga sii dari karaan, waxayna dadka aan la hadalnay ay leeyihiin toddobaadyadii la soo dhaafay sidaas oo kale waa ay jirtay cabsida la xiriirta in dagaal halkaasi ay ka dhacaan. dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay, waxayna Somaliland sheegtay in gacanta lagu dhigay dad la sheegay in ay hubaysnaayeen kuwaas oo xoolo dhaqato ahaa, markii dambena la ogaaday in dad kale laayay ay ahaayeen dad xoolo dhaqato ah. khubarada arrimahan la socota ayaa waxay leeyihiin Somaliland waa inay si degdeg ah u joojiso beegsiga dadka xoolo dhaqatada ah, iyada oo deegaanka Indhabiroole oo dhow magaalada Saylacna la sheegay in ay weli xiisadii ka taagan tahay lagana cabsi qabo dagaal halkaasi ka dhaca. madaxweynaha Somaliland oo dalka ka maqan ayaa la filayaa inuu degdeg ugu laabto Somaliland isagoo ka hadli doona in Somaliland duulaan lagu soo qaaday. Ismaaciil Cumar Geelana wuxuu sheegay in tan aan la iskaga hari doonin oo loo aari doono dadkii rayidka ahaa ee sida bareerka ah loo dilay iyagoo aan hubaysnayn. khilaafkii u dhaxeeyay Cabdiqaadir Firdhiye iyo ku-xigeenkiisa Abwaan Cabdirashiid Jibriil ayaa xal rasmi ah laga gaaray. kulamo socday dhowrkii maalin ee la soo dhaafay ayaa ugu dambeyn la sheegay in lagu xaliyay khilaafkii halkaasi ka taagnaa, iyada oo wararka iyo macluumaadka aan helaynana ay sheegayaan in ay adag tahay in markaasi khilaafkan uu sii socdo, maadaama dad badan ay aaminsanaayeen in khilaafkan uu wax weyn u dhimi karo aayaha iyo mustaqbalka maamulkan curdunka ah. inkastoo maamulkan uu yahay maamul un hadda la aqoonsaday, haddana inuu khilaaf la kowsado dad badan waxay sheegeen inay ahayd fadeexo iyo ceeb xooggan, taasi oo ay dad badan sheegeen in laga gaabsan karay ama la iska joojin karay in ficilada noocan oo kale ah ay sii socdaan. waxaan la hadalnay dhowr xubnood oo ka mid ah shakhsiyaadka ugu miisaanka culus maamulka Waqooyi Bari, waxayna noo sheegeen in labada oday ay madaxa isa salaaxeen oo iska raaligeliyeen hadaladii xanafta lahaa, iyadoo Cabdiqaadir Firdhiyana si weyn loogu canaantay inuu tanaasul sameyn waayay. qodobkeena ugu dambeeyana kooxda Al-Shabaab ayaa maanta mar kale weerar waxay ku qaadeen magaalada Kudha oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. dagaal qaatay 2 saacadood oo xiriira ayaa mar kale wuxuu u dhex maray ciidanka Jubbaland iyo sidoo kale maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. muuqaalo baraha bulshada lagu baahiyay ayaa waxay muujinayaan meydadka koox ka tirsan Al-Shabaab oo goobta yaala iyo rag nolosha lagu qabtay oo dhaawacyo halis qaba. ciidanka Jubbaland waxay sheegeen in ay si weyn uga hortageen ficilkii la doonayay in lagu wiiqo awoodda ciidanka Jubbaland. ciidanka Jubbaland inta la aaminsan yahay waa ciidanka sida weyn ula dagaalama kooxda Al-Shabaab, marna lagama guuleysan ciidanka Jubbaland dhammaan weeraradii lagu soo qaaday, waxayna dad badan aaminsan yihiin in Axmed Madoobe oo khibrad u leh dagaalka kooxda Al-Shabaab iyo ragga saraakiisha ah ee weerarada hogaamiya ay yihiin
kuwa isbiirsaday oo ka hortegay weeraro dhowr ah oo kooxda al-shabaab ay rabeen inay dad rayida ku laayaan. gudahana saaxiibayaal wararkeena intaas ay ku dhan yihiin. hadday tahay markii kuugu horeysayna ku soo bir janalkan waad mahadsantihiin saaxiibayaal ee soo dhawaada.